odayaalka dhaqanka culmaawdiinka iyo qaybo shirkadisnimo bulshada koonfurta Soomaaliya iyo kulan sidamaal dareeray hanka gabagaboway xafiiska golaha malaaqyada ee magaalada Baydhabo kulankan oo la ka horjeedi ka dhawaaqowga maalmooyinka dambooway la dhawaaqay madaxweynayaal imaamul goboleedyo cusub gaar ahaan ka soo gaamiyo Professor Gandhi gabagabadii kulankan ku reed oo shir jaraa'id wabadeen qaar ku mid ah odayaalka dhaqanka iyo walgoradka iyo wayba ku hadaleena maamul goboleedyadii aan ka dambooway iyo dawladda Kenya oo ka sheegan in ay hanoolayahay hogaamiye kooxeed cusub gudoomiyaha golaha malaaqyada Isaaq Ibrahim oo ka shirkaas jaraa'id ku hadlay yaa waliba tilmaamay in magacaabista maamul goboleedyada cusub ay haano la ka horjeeda jiritaanka Soomaaliya iyo xasiloonida wali kale intaas ka daray in Professor Gandhi uu saanin dhalan deegaanada uu saxta sheegadahay iyo aqoon-yahanada digil imrafle may conference ka qabadeena magaalada Baydhabo magaaladaas Baydhabo oo ah caasimada gobolada koonfurta Soomaaliya marka maysi alaha Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta oo dhan may sheeganay in yani aragtiyeeda ee kitaabta munaasabna iyo qasad laakiin la raaw Gandhi oo sheegay madaxweyne gobolada يعني أنك تلان وس الله وس الدرسين هاين وس الشاعري ويعني بين لوس إيه يك أمتيو هاينا كبين يو هاينا كي وركن كلاونه ما يشجعنا الدوينها عالم كورتن يا يشجعنا إلا كاس فوالله إيو نيت الكن سومالي ولا كلاين هو وس كبين شجعوا هاي هو كبين أبو رضوا هاي حتى المركات ما يها حديث الكوال كلا هذا لا أما دلكيو سأرد الشيخ ذا وسوفرتي هذا بدي مثل هذا من كينيا ما يكون سريه ميلو يعني هوتيله يكون بريس قبل فكانت هو الشيخ ذا هاي سومالي أردن يما ينها دولة قبلات هاي بينا شيخ فوزي عبد النور oo ay afhayeenka golaha aqoon-yahanada koonfurta Soomaaliya oo uu ku hadlay shirkad jaraa'id yaa wali dawarku ku qaaday inay madaxweyneyaalka iyo maamul goboleedyada ku dhawaaqay dalkaas Kenya iyo ay noocyada jabhadeed iyo hogaamiye kooxeednimo oo wadayaari magaaga Professor iyo Dr. iyo hano kale gaar ahaan kan hogaamiye Professor Gandhi uu soo dhinaca kalena dawladda Kenya ka eeday inay hanoolayahay ama reeta ku riixayta dagaal oogayaal cusub oo gudaha dalka Soomaaliya iyo kooxo korna tan ka dambayso oo lagu dhawaajiye nanka Gandhi leero Gandhi arimooshay may dabagalayna dadku naxta ku dhawaajinay dawlad goboleedyada ku dhawaaqay deegaanada koonfureed oo wal dadka deegaanada koonfureed degan lunkula talana deegaanada koonfureed dadka hata walaal ka dhawaaqay meen dekamaana hogaamiye kooxeedii wadankan lagu baabi'iyay oo wadankan ku zuulay wiji cusub iyaga wadadan maga doctor professor engineer iyo walaalaad wadadan oo dawladda shisheeyna dabada ku riyaayeen hogaamiye kooxeed cusubna magacaawdeen yoy dawladda walaal la hagajiyay saldhig sheeyatana nagati dawladda Kenya in la ka barbaari meel la ka kori ka baadina hogaamiye kooxeed boosjo la ka nag taas markan oo umadun deegaanadon iyo qaadadaayaan ma deegaanadon deegaana asal iyo farcaba an la ma dad ka maarnaa geeka ku sheegadahay in maamul goboleedyo in jarna aanu araan adaniya aanu araan ma ay tii banaadir hadalku hakuweeri qayba bulshada rayidka koonfurta Soomaaliya yeelan ogaayna darbaanyo ininka naga doon in kala hamiga shakhsiyaadka madaxtinimo doonka ee fadayaan in la wareegan talada dalka Soomaaliya iyada oo dib u joog in dalka Abshir Maxamed Nuur